halgankii gabdhiya wiilaliya geesi lagu waayay halgankii la goobtay gigsadeen gacmaha taagin halgankii kungulamo iyo loo guntaday hooga in gumaysi kala qaybiya in gumaysi kala qaybiya soo guriba soo maha ay soo abaabushay beesha Yoonis Saciid ku hees geela wuxuu yiri geela waxaan ugu heesi lahaa maanta shalay baa loogu heesay wixii aan ugu oran lahaa dadkii iga horeeyay baa yiri ee beelaha sool sanaag iyo cayn dhulbahante iyo fiqishin iyo beelaha gaboobo wax garadkoodii iyo qof kasto dhulbahante iyo fiqishin iyo beelaha gabooya oo gobolada sool sanaag iyo cayn degan baa hadalka nuxurkiisii ku hadlay horay baa loogu hadlay waa la istay hadalka nuxurkiisii waxaan halkan tacsi uga dirayaa dadkii ku dhintay xasuuqii ka dhacay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaan leeyahay ilaahay jannadiisa xaq darrada ku dhintay ilaahay jannadiisa firdawsaha geeyo ehladii iyo qaraabadii ay ka dhinteenna samir iyo iimaan Allah ka siiyo intii ku dhaawacantay ee waxyeeladu ku gaadhay ee xaq dirirka ahayd ee halgamaysay waxaan leeyahay ilaahay haydiin boogadhayo caafimaadna haydiin siiyo waxaan halkan uga mahadnaqayaa garaad jaamac garaad Ismaaciil oo markii kacdoonku ka dhacay runtii ilaahay waafajiyay inuu dhulbahante gudi ka qabto oo runtii sharaf iyo karaamo ku lahaa arinta aad baan ugu mahad celinayaa sidoo kale waxaan u mahad celinayaa gudida 330ka ah oo masiirka iyo aayaha iyo midnimada dhulbahante wali gacanta ku haya waxay weeye waa maxkamad weeye xeer ilaaliyaheedii bay leedahay maxkamad weeye iyaga la sugayaa waxa la leeyahay wixii ay soo saaraan waa aynu ku khasbanaa insha Allah ta'ala miraheedana waa dhadhamin doonaa aad baan ugu mahad celinayaa inta waxaan ku darayaa wadankan waad ogtihiin oo dawladii kama jiraan maamullo yar oo dhirta lagaga leexdo loo kala ba ka jira dawladda Soomaaliya federaalka Soomaaliya waynu garanaynaa halkan la xoogeedii ma soo gaarin nimanka iska dhaadhiciyay dawlad baynu nahay oo dadkoodii ugu sheekeeyay xuduudaynu soo xirina gidaar baarliin baan dhisayna waxaan sameeynaa oo runtii sheeganaya mas'uuliyiinta sida isimada Hargeysa iyo Burco jooga ama